magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa lagu qabtay xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaana munaasabada ka soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madaxweynihii hore ee maamulkaasi Puntland Cabdiraxmaan Faroole hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Senator Abshir Bukhari xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin caan ka ah geeyiga Soomaalida wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Bare Ducaale oo ay weheliyeen xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sidoo kale qayb ka ahaa dadka ka qayb galaya caleemasaarka maanta waa idin imaanay madaxweyne annaka dadka waxay isweydiiyaan Kenya interest-keeda muxuu naka interest kale ma qabno interest kana waxa weeyo Soomaali oo nabad ah oo degan midda labaad interest kana muxuu yahay Jubbaland 800 kilomitir oo xuduud aan leenahay annaka Jubbaland waxa qasab ay nagu tahay national security interest ka wadanka annaka wuxuu ku xiran yahay Jubbaland aniga nila hadlayo degmada liga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay ciidamadana maalin kasta meeshan joogaan ku dhamaadaan ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin ayagoo ummadda Kenya ilaalin waxa maanta Jubbaland ay tagtay nabad ay hesho Soomaaliya ay nabad noqoto annaka 1 minute ma sii joogayno Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu uga mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha caleemasaarka isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo maamulka Jubbaland waxaan ballan qaaday inaan dhamaystirayno systemka dawladnimo waxaan ognahay Soomaaliya systemka dawladnimo ay qaadatay saddexda leeyara ee dawladda federaalka dawlad goboleedka iyo midda la dhisay councilada ama dawladaha hoose ilaa heer degmo gaaraysa inaan dhamaystirno oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waqtigiisa kale waxa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahayn maamuladaas oo qoriisu dhiib ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin ta dawladda goboleedkuna aynan helin ta dhaxana aynan helin inay noqonayso sharanjaro isku xidhan waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sanadaha soo socda haddii ilaahay nala garab galo oo aan doonayo wajiga maanta aan ku jirro mid ka bedelan inaan gaari doono aanan codsanayo dadka reer Jubbaland inay nagu taageeraan nagu garab istaagaan idinkana aad markhaati nooga noqotaan ciidaha Rusmaagane codka bariga Afrika Muqdisho.